afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi mudane Cabdirashiid waxaad ka warantaa bal xanibaada ay dawladda Djibouti u geysatay la taliyihii madaxweynaha ee dhinaca amniga walaal aad baa mahadsantiin Dalsan TV ruuxantii dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay aad uga xun tahay falkaas oo xadgudub ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah saaka subaxii arooriyadii hore ayaa diyaaradaas la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu saarnaa mudane Fahad Yaasiin ay soo gaadhay dalka Djibouti iyadoo ka timid dalka Turki la taliyuhu muddo wuxuu ugu maqnaa dalka dibadiisa safar shaqo dalka Djibouti-na wuxuu ku ahaa transit destinationkiisu wuxuu ahaa inuu yimaado magaalada Muqdisho marka falkaasi waxa uu dhacay markii hore diyaaradda waxa loo sheegay in ciladii ay jirto muddo dhowr saacadood halkaas ay ku xanibnaayeen markii dambena aviationka Soomaaliya waa ay ogolaatay diyaaraddaasi inaanay wax ciladii jirin oo hawada Soomaaliya ay soo gali karto marka ka bacdi isagu diyaarad buu tigir kale ka goostay haddana mar labaad diyaaradii waa la is hortaagay ugu dambeynna waxay noqotay baasaboorkii in laga reebo oo la xanibo safarkii laga xanibo arrintaasna waa arrinta ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay cambaaraynayso aadna ay uga xun tahay in sidaa loo maamulo waxaana ugu baaqaynaa dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti inay arrintan iska xil saaraan oo mas'uuliyaddeeda ay qaataan una ogolaadaan sarkaalkaas iyo mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliyeedba inay safarkooda si ammaan ah ay u gutaan Cabdirashiid warar soo baxay waxay sheegayaan in xanibaadan iyo is-hortaagga lagu sameeyay ay ku lug leeyihiin booliiska caalamiga Interpol warkaas maxaa ka jira walaalo waxba kama jiraan la taliyaha amniga qaranku wuxuu u safrayay si sharciyeysan oo nidaamsan muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu safro weeye marka wararka saliya raadka aan lahayn iyay kamid yihiin kuwaasi berito waa 18 bisha September waana maalintii hore madaxweyne Farmaajo u shaaciyay in golaha amniga qaranku ay isugu imanayaan kulan oo Fahadna uu ka jeedin doono warbixin ku saabsan kiiskaas la sheegay la isku qabtay gabadha Ikraan ku saabsan arrintaas miyuu soo socday marka safarkiisu arrintaas uu daaranaa isagoo hadda waa la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda qayb ayuuna ka yahay la taliyaha amniga qaranku inuu shirka waliba qayb muhiim ah ayuu ka yahay inuu fadhiyo oo goobjoog noqdo marka fasax shaqo oo safar shaqo oo dibadda ugu maqnaa muddo ayuu hadda dib ugu soo laabtay soo munaasabadaas iyo shirka ballaaran qayb uga noqdo Cabdirashiidow Fahad Yaasiin waxa uu muddo dheer ahaa dhowr sanadooda taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya safar badan oo ku mari jiray caalamka Djibouti waa sii maray waa soo maray wax dhibina ma dhici jirin lama hor istaagi jirin sidan oo kale haddana waxaad madaxweynuhu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka maxay kula tahay in hadda ay ku soo beegtay in la hor istaago oo sidaas loo karaamatiro wallahi taas waxa la weydiinayaa dawladda Djibouti baa la weydiinayaa labada shacab waa laba shacab oo walaalo ah dana badan baa ka dhaxeeya in la carqaladeeyo isu socodka xorta ah musaafiriinta labada dal arrintaasi waa arrin aad digaf iyo ceeb ugu ah dawladda Djibouti waxa kale oo anagu aan ka warqabnaa in walaalaha reer Djibouti arrintan sida aan uga xunnahay oo kale ay uga xun yihiin waxa kale oo aan rajaynaynaa in si fiican loo maamulo arrimaha noocan oo kale ah oo aan lagu qasin arrimaha siyaasadeed labada dalna waxay leeyihiin xiriir soo jireen oo walaaltinimo inta la tixgeliyaa ugu muhiimsan waa sida aad u sheegtay Fahad Yaasiin muddo dheer buu soo adeegay dalka u soo shaqeeyay wuxuuna ku mudan yahay run ahaantii bogaadin shaqada qiimaha leh uu ku habeeyay kuna horumariyay hay'adii uu ka shaqeynayay
shaqadan iminka loo igmaday amniga qarankana waa shaqo aad muhiim u ah oo run ahaantii in uu goobjoog ka noqdo shirka berrito faraya. cabdirashiidow warar soo baxay waxay sheegayaan in arrintani ay ku lug leedahay khilaafka u dhaxeeya xukuumadda iyo madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo xukuumaddu ay la xiriirtay dowladda Djibouti. arrintaas idinku ma qabtaan maxaad ka ogtihiin? arrintaas ma qabno haddii idinka aad xiisaynaysaan warar dheeraad ka heshaan dee la xiriira xukuumadda arrintan waxa mas'uuliyaddeeda iska leh dowladda Djibouti iyadaana hadda kala xaajoonaynaa. dowladda Djibouti lafteeda ma la hadasheen mase hadda kadib aad la xaajoonaysaan? xiriirku wuu socdaa insha Allah waad ka warhelaysaan wixii waraya inta dheer. hay ugu dambeyntii hadda waxaad sheegtay in Fahad Yaasiin damcay inuu diyaarad kale ticket u goosto lana celiyay marka saraakiil kale miyaa la socotay hadda se xagee ku sugan yahay ma xiran yahay oo waxaa la geeyay xarun booliis ama ciidan ma garoonka diyaaraduhu ku sugan yahay xagee joogaa hadda ogaanta? la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir walaalow xilligan wuxuu ka xaniban yahay garoonka Djibouti waxaana mas'uuliyaddeeda qaadaya arrintaas dowladda Djibouti oo leh mas'uuliyadda is-hortaaga shakhsiga ee lagu sameeyay mas'uulkaas. waa mahadsantiin. waad mahadsantahay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo u waramayay raadiyaha iyo telefishinka Dalsan ee magaalada Muqdisho.